xabad joojinta ayada ku dhawaaqday marka ay ku dhawaaqday cidihii amba nabad loo marayay war degdega daawadayaasha sharafta leh dagaal qadhaadh ayaa ka qarxay galbeedka Soomaaliland iyo si la mid ah ka soo gaaray ilaa iyo gudaha dalka Itoobiya in ay isku farasaareen reeraha Ciise iyo Samroonka madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo lagu eedeeyay arrimo musuqmaasuqa iyo si la mid ah inuu ka qayb qaatay horinta colaadda dhinaca kale gobolada Awdal iyo Salal ayaa iyaguna laga dareemaya buuqa xoogan iyadoo laga cabsi qabo in dagaalka mar kale deegaanada uu sii fido isla markaana uu ku saameeyo dowladda Soomaaliland oo baaq culus ay soo saartay odayaasha beesha Ciise oo iyaguna hanjabaado kulul ay u direen taliyaha ciidanka Soomaaliland Nimcaan Gaxnuug isla markaana ay u sheegeen inuu yahay taliye dulmiilo isla markaana uu ka shaqeynayo burburinta iyo amniga deegaanada ee Soomaaliland iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo ay sameynayaan ciidamada jabhadda Ciise oo ka soo dhaqaaqeen ciidankii iyo si la mid ah gawaaridii hubkii ugu tiro badnaa halka loo yaqaan ay shacab isla markaana ay tahay fadhiga jabhadda Ciise ay fadhigooda halkaas oo ahaa xaaladdu ayaa faraha ka sii baxday lama ogase amniga deegaanada ee Soomaaliland halka ay ku dambeyn doonaan kadib hanjabaadii uu soo diray ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa iyo dadaalo kale oo si la mid ah la doonayo in lagu hergeliyo ama nabad loogu soo daabulo ee gobolka oo ay wili ay socoto laakiinse ay u muuqato inaysan ahayn mid ay xaalkeeda halkaas ay ku ekaan doonto iyo wararkii ugu dambeeyay ee reeraha Ciise iyo Samroonka ayaa halka ay kaga hayaan daawadayaasheena sharaftan halkani waa gunta wararka hadaan ugu cusubtahay nagu soo biir subscribe sar channelka hada Facebook page ka nagala socotidna like garay share garay muuqaalka asxaabtaada si gaarsii mahadsanid aynu gudagalno dagaal ayaa mar kale ka qarxay deegaanada galbeedka Soomaaliland halkaas oo mar kale isku farasaareen Ciise iyo Samroonka dagaalka ayaa saameeyay ilaa iyo gudaha dalka Itoobiya oo la sheegay inay reeraha isku farasaareen isla markaana la sheegay in halkaas uu ka qarxay iyaduna mar kale dagaal qadhaadh oo dhexmara Ciise iyo Samroonka reer kamid ah reeraha Samroonka ee Dudub isla markaana ay halkaas ay wada degayaan deegaanada halkaasi loo yaqaan gudaha aan iraahday deegaanka Bolol oo la sheegay wax ka yar 25 kilomitir u jirta degmada Ayshaca ayaa isla markaana la sheegay in halkaas ay isku farsaareen oo xarunta ugaaska beesha Ciise taas oo halkaas sababtay inay ka dhashaa khasaare kala duwan isugu jirta dhimasho iyo dhaawac waxaa la sheegaa in reerka Dudub ee Samroon ka soo jeedaan ay halkaas isku farsaareen iyaga Ciise isla markaana la soo tabinayo in dagaalku sababay inuu ka dhashay khasaare kala duwan isugu jirta dhimasho iyo dhaawac dagaal xoogisay ayaa lagu sheegay isla markaana xadgaha uu goosay oo faraha ka sii baxay colaadus ayaa ballaaratay isla markaana lama oga halka ay wax ka dambeyn doonaan kadib dadaalo maalmihii u dambeeyay ay dowladda Soomaaliland iyo odayaasha dhaqanka ay ka wadeen halkaas isla markaana ay doonayeen in nabad lagu soo daabulo ee gobolka ayaa la sheegay inuu noqday mid uu fashilmay arrinkaasi isla markaana uu socon waayay ugaaska guud ee beesha Ciise ayaa la sheegay inuu ku amray jabhadda Ciise inay qaadaan weeraradii ugu dambeeyay iyo duulaanadii ugu dambeeyay si loo soo afjaro arrinkan ay halkaas ka taagan iyadoona la shaaciyay in loo baahan yahay in dagaalkan la soo afjaro gabigiisa isla markaana meel looga soo wada jeesto reerka Samroon ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa ayaa amar ku bixiyay in ilaa iyo deegaanka Zeylac Fraa looga qaadi doono Ciise iyo deegaanada kaleba ay wadi doonaan duulaanada ay wada isla markaana ay samarnaba isaagi dooneen iyagoona ay sheegeen in dagaalku sii socon doono ilaa ay lagu kala adkaado waayay beelaha reer Dudub isla markaana iyo si la mid ah Bahabar Cabdallo ayaa iska difaacay sida la sheegayo jabhadda Ciise isla markaana oo weerar gaadma la sheegay inay ku soo qaaday deegaano hoos yimaada ee Bolol halkaas oo la sheegay in jabhadda Ciise ay ku soo qaadeen markii hore weerar laakiin ka horse ay soo direen hanjabaado aad u culus intaysan duulaanka qaadin arinta oo lagu sheegay inay sabab u ahayd in dagaalku ka qarxay halkaasi iyadoona beesha Ciise ay wacd ay ku mareen in deegaanka soo ay joogaan Samroon ee gudaha Itoobiya ama Kenya iyo Soomaaliland ay weerar doonaan isla markaana duulaana ay ku qaadi doonaan iyagoona la sheegay in arrinkan ay dhinaca kalena hub culus ugu imaanayo ee beesha Ciise dhanka iyo Djibouti oo la sheegay madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geele oo reerka uu garab ku siinayo sidii halkaas looga adkaan lahaa reerahaasi waaya
shalayse iyaduna waxaa dhacday weerar culus oo la sheegay inay fuliyeen ciidanka Somaliland isla markaana lagu beegsaday reerka Ciise taasoo la sheegay inuu hogaaminayo ciidamadaasi taliyaha ciidanka Somaliland Nimcaan Gaax Nuug ayaa la sheegay inuu hogaaminayo ciidanka weeraray beesha Ciise isla markaana mid kamid ah deegaanada Somaliland gaar galbeedka halkaas ay isku farsaareen Oodal iyo Salal ayaa la sheegay in ciidanka hogaaminayo taliyaha ciidanka Somaliland waxaa la sheegaa in abaarkii sagaalkii subaxnimo in ciidanka Somaliland oo isla markaana ay ku sii socdeen wadada Galmudug maraya ayaa si lama filaan ah la sheegay inay iskaga soo horbaxeen ciidanka beesha Ciise halkaasi oo ku dhaxmaray dagaal qadaan iyadoo dhinac kalena la soo tabanayo in iyagu ay weerareen fariisimo ay lahaayeen jabhadda Ciise waxaase xagga hore iyo xagga dambeba wadada ayaa la sheegay inay kaga joogeen ciidanka beesha Ciise oo kuwa xagga hore joogay ayaa iyaguna la sheegay inay ka leexdeen wadada si ayna markaasi u arag laakiin ay sababtay ugu dambeyntii inay arkaan isla markaan halkaasi oo ka qarxo dagaal qadaan u dhaxeeya labada dhinac taliyaha ciidanka beesha Ciise wata ayaa la sheegay oo ku amray in ciidankiisa ay isdhiibaan oo ay gacmaha kor u taagaan isla markaana sidii ayna yeelin isla markaa waa kuwe ku amray waa ciidamada Somaliland ayaa lagu amray inay isdhiibaan ciidanka Somaliland ayaa la sheegay inay 4 gawaadhi technica iyo si lamid ah hub kale oo badan uu watay gacanta ayaa lagaga dhigay iyagiina boga ayaa iyaguna la sheegay dhulka loo dhigay balse taliyihii ciidanka beesha Ciise ayaa watay ayaa yidhi sida la sheegay kaligii go'aan qaadan maayo odayaasha reerka Ciise ayaa isla markaana wax garta goyn doono iyagaana go'aamin doono sida laga yeeli lahaa ciidamada iyo si lamid ah gabaaradii laga qabsaday Somaliland isla markaana iyagu ay gacanta ay ku dhigeen dhinaca kalena deegaanka Gogog isla markaana degmada Bolol loo yaqaano dowlad deegaanka Soomaalida ayaa halka sida tooska ugu socda dagaalka qadaal isla markaana u dhaxeeyo Ciise iyo Samroonka xaaladdu ayaa faraha ka sii baxday lama oga si halka ay ku dambeyn doonto iyadoo halkaas ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay beelahan walaalaha halkaas isku farsaaray ayaa maalmo ka hor ay ahayd markii dowladda Somaliland ay ku baaqday in arrinka wax laga qabto isla markaana gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Cabdulla Sandheere iyo si lamid ah madaxweyne ku-xigeenka iyo taliyaha ciidanka Somaliland Nimcaan Gaax Nuug oo halkaas lagu daabulay ciidankii ugu badnaa Somaliland Oodal iyo Salal isla markaana la qorsheenay in la adkeeyo ama la xakameeyo amniga deegaanada si wax looga qabto isla markaana loo xakameeyo colaadda labada dhinac waxyaabaha sidaadka loo xasuusto waxaa ka mid ahaa in taliyaha ciidanka Somaliland Nimcaan Gaax Nuug oo amar ku bixiyay in ciidanka safariisimo oo fadhiyo san ka soo dhaqaaqi karin isla markaana aysan qaadi karin wax tilaabo oo dhinac kale aysan u gudbi karin laakiin arrinka ma aysan noqon wax laga guuleysa haddana se xaaladdu ayaa noqotay mid faraha ka sii baxdo oo weli xiisada ay sii horeyso isla markaana faraha ay ka sii baxday dagaaladusi ayaa sii socdeen isla markaana waxaase la sheegaa in ugu dambeyntii mar kale lagu guuldareysay heshiiskii la doonaya in la dhexdhigo reeraha Ciise iyo Samroonka kadib markii halkaasi dagaalka qadaadho oo sii xumaaday oo faraha ay ka sii baxday colaadda u dhaxeysay labada dhinac Ciise iyo Samroonka dadaalo xoogan ayaa mar kale lagu wadaa lagu doonayo in gobolka nabad loogu soo daabulo inkastoo aan loogeen halka ay ku dambeyn doonaan colaadan u dhaxeysa Ciise iyo Samroonka ayaa weli baaqi ay ku noqotay deegaanada Somaliland iyadoo gebi ahaanba loo waayay xal waara oo wax looga qabto arrinkaas markaana loogaan waayay sida loo xalin lahaa arrimahaasi wixii warar kale ku saabsan arrinka halkaan gunta wararka ayaad kala socon doontaa waa anigu Cali Shajaac Mahsanidin